السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا وچانل كيني علم فافية مركا دياد چانل كوعصبتاي مقعيق وبارود عبد الرحمن وحاولي إنو سعدا عشرة ديني تحناها أها إنجليش كوسابسنا هدابا مانت عشر كاينو قادن دونو وكي خميستي هوري أينو سو قادني بارت توغيسي برو sida Englishka degdeg loogu hadlo part 2 runtii casharadena weligood ayaan idin wadi doonaa ilaa heer sare Englishka aan idin faa'iideeyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee aan doonayo inaan idin faa'iideeyo insha Allah waa sida hadda inoo socotaba Englishka maanta lagu hadlo oo loo yaqaano modern English okay iyo sidoo kale idioms-ka maanta la isticmaalo oo ah idioms sarbeebada Englishka ee maanta la isticmaalo sidoo kale proverbs-ka mahmaahyada Englishka iyagana maanta la isticmaalo iyo today's vocabulary kelmadaha maanta la isticmaalo iyo sidoo kale dhammaan wixii ku saabsan modern English. Lakin mid xasuusnaada, keep in mind, the more you give me subscribe, like, comment, share is the more I suggest you spread them better about next listeners, you know what I'm saying? Markasta oo aad isisaan subscribe, like, comment, share waa markasta oo aan idin soo bandhigo waxba waxa ay kasii fiican yihiin oo ku saabsan casharo fiican. Hey كورن أديك سبسكرايب مسيسي ولي channelka حدا جاوب تاهي ها thanks a lot you're welcome again and again لكن هدي جاوبت أي تاهي مايا سي هذا سبسكرايب سيدو كلانا جمرال كيرنا ريح سياد لا سعوتي مركزتا وأنصاري عشركة channelka وأنكم محسنتين تاقيرتان كينا okay intaas kadib cashirkana ayaan iska bilaabanayna isla socod wanaagsan let's go haddii aynu in yar isira xasuusino horay waxaynu u soo qaadanay toddobadan kelimadood oo aynu si fiican u soo sharaxnay iyaga iyo tusaalayaashoodaba haddaba maanta waxaynu qaadanaynaa toddoba kelimadood oo runtii aad iyo aad ku muhiim ah inaad taqaanid. Okay, so let's get into it. Kelimada koowaad waa trainer oo u taagan trying to marka isku day inaad iga daba dhahdid si aad dhawaaqa saxda ah aad ula keentid. Trainer waa markaaga isku day dheh trainer. Okay, for example haddii aynu sentence gelino waa meeshaad ka dhihi lahayd I'm trying to live ayaad zero fast ah oo simple ah u dhahaysaa I'm trying to live iyo inaad tiraahdo I'm trying to live which is more fast kaba aad u degdega oo waxaan ku horey faster inaad tiraahdo. Okay, another example he's trying to drive this car oo ah isaga wuxuu isku dayayaa inuu gaarigan kaxeeyo he's trying to drive this car. kelimada labaad ama sometimes waxaa loo qoraa ja iyo kelimadan yaa intaba waxay la macno yihiin kelimada loo yaqaano you. Okay, haddaba kelimada haddii aynu sentence gelino I want you more iyo haddii aad tidhaahdid I want you more waa isku mid laakiin maadaama aynu doonayno inaynu Englishka si fast ah ugu hadalno waa inaynu
dhahna I want you more. Yeah, I want you more. Another example. Baby, I need you more like I need myself. Gacaliso aad baan kugu baahanahay sida aan naftayda ugu baahanahay oo kale. Baby, I need you more like I need myself. Markana kelimada ya ayaynu sentence gelinayna. Kelimada ya waxa ay la macno tahay sidan hore aynu soo sheegnay. Waxay la macno tahay kelimada you ya iyo you waa just same isku mid. Okay, haddii aynu sentence gelino, for example, I love you. Waan ku jeclahay. I love you. Another example, see you again. Why know you? Markale. Marka see you again iyo see you again waa isku mid haddii aad tiraahdo. Kelimada saddexaad waa cause. Kelimadan waxaa laga yaabaa inaad in badan aragtay iyadoo la isticmaalayo. Marka cause sometimes marmarka qaar xarafka ugu dambeeya waxaa laga dhigaa marna s marna z. cause xagga qoraalka marka waxaana loo soo gaabiyey because oo loo soo gaabiyey because. Okay, for example, I don't like this man because he's nasty. Ma jecli ninkan maxaa yeelay waa naas. I don't like this man because he's nasty. Kelimada afraad waa watcha. Isku day inaad degdaba dhahdid si aad dhawaaqa saxda ah aad ula qabsatid. Watcha. Haye waa markaaga dheh watcha. Marka maxay kula tahay micnaheeda inay tahay? Kelimadan waxaa loo soo gaabiyey what are you. For example, meeshaad ka oran lahayd what are you doing ayaad siro simple ah u dhahaysaa what you doing. Maxaa samaynaysaa? Another example, meeshaad ka dhihi lahayd what are you thinking ayaad siro faster oo simple ah ayaad u dhahaysaa what you thinking. oo micnaheeda ah maxaad ka fikiraysaa what you thinking. laakiin watcha ma isticmaali kartid kelimadan markaad doonaysid inaad ogaatid qof waxa uu yahay. For example, aniga waxaan ahay American. Marka aan adiga doonayo inaan ogaado waxa tahay ma dhihi karo oo sax maaha, munaasibna maaha inaan idhaahdo I'm American watcha. أنا إحنا American watcha أدنى no taas ma shaqeynayso sax ma inaan idhaahdo waa inaan dhahaa American what are you ama American what about you. أنا American banahay أدنى. kelimadan watcha waxaa la isticmaali karaa oo keliya marka action aad raacinaysid. For example, what you thinking ama what are you thinking. sidan ayaa shaqaynaysaa sababtoo ah maskaxdaada waxay ka fikiraysaa ficil aad qaban lahayd ama aad samayn lahayd. Another example, what you doing today. maxaad qabanaysaa maanta? what you doing today marka that's an action sababtoo ah wax
kasta oo aad maanta sameynaysid waa action. Kelimada shanaad waa needa. Kelimadan waxaa la soo gaabiyey need to. For example, meeshaad ka dhihi lahayd I need to go my house, waxaan u baahanahay inaan gurigayga aado, ayaad simply dhahaysaa I need to go my house. Marka needa I need to go my house. Another example, she needed to tell something special. Waxay u baahan tahay inay ku sheegto wax khaas ah. She needed to tell something special. Kelimada lixaad waa Lara. Isku day inaad gadaba dhahdid si aad dhawaqa saxda ah aad ula keentid. Haye oo markaaga isku day dheh. Okay, for example, haddii aynu sentence gelino kelimadan waxay noqonaysaa I'm waiting for a lot of money from the bank. Waxaan lacag badan ka sugayaa bankiga. Another example, I get a lot of love when I show you. oo ah waxaan helay jacaylo badan aan doonay inaan ku tuso. I get a lot of love when I show you. Kelimada ugu dambeysa waa used to oo la soo gaabiyey used to. For example, I used to be a teacher. Waxaan ahaan jiray macallin. I used to be a teacher but now I'm not. Waxaan ahaan jiray macallin laakiin hadda ma ihi. I used to be a teacher but now I'm not. Waxaan ahaan jiray macallin laakiin hadda ma ihi. Another example, she used to be my love. Waxay iyadu ahaan jirtay jacaylkayga. She used to be my love. Another example, I used to know how to play football. Waan aqoon jiray sida loo ciyaaro kubadda cagta. I used to know how to play football. Hadda waxaa halkaas inoogu dhammaaday cashirkeenii maanta. Laakiin shayga ugu horeeya ee muhiimka ah inaad ogaatid waxa ay tahay marka kelimadahan marka iskuulka aad joogtid iyo jaamacadda sida homework, exercise-yada, topic-yada, kelimadahan munaasab ma aha inaad qoraal ahaan u isticmaashid. Iyo sidoo kale professional place-kaba marka aad joogtid. Haddaba kelimadahan oo kaliya maaha ee waxaa ka mid ah kuwii hore aynu soo qaadanay oo aynu soo sharaxnay cashirkan part 1kiisii hore. Sababtoo ah kelimadahan waa slang afsuuqi waana informal contractions, laakiin runtii waa qaar mar walba la isticmaalo daily use, lagu hadlo all the time. waxaana isticmaala aad u isticmaala Americanka, laakiin waad ku hadli kartaa meel kasta iyo mar kastaba. Marka wixii su'aal ah xagga hoose commentiga ayaad kusoo qori doontaan. waxaana filayaa runtii inaad ka heli doontaan. marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.